waxaa jiro magaalooyin badan oo qabow ah kuwaas oo in lagu noolaado ay adag tahay balse magaalada ugu qabow ee dunida ayaan maanta ka sheekeynaynaa intii ku taala magaalada ugu qabow ee caalamka waa magaalada Oymyakon waxay ku taala dalka Ruushka 7,000 oo kiiloomitir oo dhanka bariga ayay ka xigtaa Moscow caasimadda Ruushka ah aad ayay u qabowdahay cimilada waxaana ku muuqda baraf aad u waaweyn dadka magaaladan ku nool ayaa lagu qiyaasaa 300,000 oo qof markaad magaaladan soo gasho ayaa waxaad isleedahayba koonka wax ka baxsan mid ku dhex jirtaa cabirka heerkulka ee magaaladan ayaa waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay -63 digri sanadkii 1973 ayaa heerkulka magaaladan waxa uu gaaray -90 waxaana loo aqoonsaday inay tahay magaalada ugu qabow ee dunida dadka halkan ku nool ayaa 24 saac ee maalinkii loogu talagalay 21 kamid ah habeen ayay u tahay guryaha halkan laga soo ayaa dhamaantooda waxay yihiin alwaax jilay ama dhagax dhammaan dadka deegaanka ma isticmaalaan biraha iyo jiingadaha laga sameeyo guryaha sababtuna waxay tahay qabowga dartiisa dhammaan gawaarida halkan laga isticmaalo ayaa baraf waxay ku noqdaan wax ka yar 30 sakiin waxaana ku wada xiran dhamaantooda heaterka ama kulayliyaha habka malay dabashada ee dadkan isticmaalaya waxay tahay waxa la qodayaa in yar oo dhulka ah kadibna waxaa soo gelaya malaygaas wax ka badan 30 sakiin oo banaanka yaallo baraf ayuu isu bedeli doonaa ugu dambeyntii halkan nolosheedu waa mid adag qofka haddii uu cusub yahayna lamaba qabsan karayo dhammaan dadka ku nool halkan waa kuwa la tacaamulay